waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay tuulada Karay oo ka tirsan degmada Mooyaale ee gobolka Daawa. waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo howlo shaqo ku gaaray gobolka Daawa ayaa booqday goobaha macdan qodista ee tuulada Karay ay ka wado shirkadda Red Star. waftiga ayaa sidoo kale xadhiga ka jaray garoon duulimaad oo laga hirgeliyay tuuladaasi. waxaan ugu faraxsanahay inaan halkan maanta joogno oo aan muddo dheer kadib fursad u helay inaan soo booqano shacabkanaga gobolka Daawa oo aan jecelahay mar walba inaan u nimaadno, laakiin dhibaatada ka jirta xagga jidka iyo garoon la'aantu inta badan ay keentay sida gobollada kale inaan u iman. insha Allah socodkan maanta wuxuu inoo furay meeshii ugu horreysay inaan ku xiriiri lahayn garoonkaas maanta halkaa la xirxaaray oo la sii hagaajin doono ilaa laga gaarsiinayo in laga dhigo garoon xilli roob hadduu jiro iyo roob una jirin labada garoon la soo degi karo in laga dhigo ayaan rajaynaynaa, iyo jidka halkan iyo ilaa ley isku xidhaya insha Allah in la hagaajiyo. aad baan ugu faraxsanahay nabadgelyada meesha, quruxda runtii dhulkan oo dhul aad u qurux badan oo fiican ah, hadday tahay dhanka jidadka, laydhka, isgaarsiinta telefoonada, biyaha, wax oo dhan waxaad moodaa in baahidu kow ay maaragtay ayna taagnayn. marka insha Allah haddii la yidhaa kulankannagan waxaan aaminsanahay wax fara badan oo fiican inuu ka soo bixi doono. kulankanagii hore ee ku imid xarunta gobolka ee Ley mashaariic fiican baa ka soo baxay. waad ogtihiin caasimadda guryihii dadka loo dhisay way dhammaadeen, isbitaalkii wuu dhammaaday, boardingkii meel fiican buu marayaa, master plankii dugsi sare meeshu ay leedahay. marka waxaa isleeyahay haddii maaragtay shaqooyinkaas kuwa la mid ah haddana mar labaad la qabto, gaar ahaan dhanka jidadka iyo isgaarsiinta wax badan baa inoo hagaagaya. qorshahanagu waxaa weeye Leyna in laga sameeyo meel iyaduna diyaaraduhu degaan in Leyna laga sameeyo. marka way sahlanaanaysaa sida meelaha kale loo tegayo ayaa mar walba inta loo iman karaa. khayraadka ilaahay ina siiyey inaad ka faa'iidaysataan, iskaashitooyin samaysaan, amniga ha lagu dadaalo, midnimada ha la ilaaliyo, colaadda iyo isku dhaca iyo waxa la iska ilaaliyo. waad mahadsantihiin.